kooban ayaan idinka sheegi doonaa ninka caawa ugu hadalhaynta badan waxa weeye Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo sida ku qoran baasaboorka uu haystay Kenyaanka sanadkii 1978 ku dhashay degmada Mandheere gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya laakiin dad qoyskiisa ay waxay sheegeen inuu ku dhashay degmada Balad Xaawe gobolka Gado ee Soomaaliya bartamii sanadii 1980 waxa la geeyay magaalada Muqdisho halkaas oo uu ka bilaabay barashada diinta Islaamka meelaha uu casharada diiniga ka raacdaystay waxa kamid ah masjidka Isbahaysiga ee ku yaala magaaladaasi markii dagaalka sokeeye uu bilaabmay sanadkii 1991 waxa uu qoyskiisa ula qaxay xire qaxoonti oo ku taala meel u dhow magaalada xeebta ee Mombasa ee dalka Kenya magaalada Nairobi ayaa intii uu ku noolaa waxa uu aad ula dhacay fikirka kooxii islaamiyiinta ahaa gaar ahaan ururkii al-Ittixaad al-Islaami oo dagaal kula jiray dawladda Itoobiya dagaalyahanada ururkaasi ayuu ka mid noqday waxaana uu ka mid ahaa dhalinyaradii Itoobiya kula dagaalantay gobolka Gado Fahad Yaasiin waxa la sheegay inuu wax ku bartay jaamacadda Iimaan ee ku taala dalka Yemen khibrada sirdoonka reer galbeedku waxay aaminsan yihiin in waxbarasho uu tagay dalka Pakistan Fahad waxa uu macallin Quraan u noqday caruurta uu dhalay waada khanfar oo tifaftira ka soo noqday qaybta afka Carabiga ee telefishinka Al Jazeera waana halka ay ka soo bilaabmayso mihnadiisa saxaafadeed sanadkii 2000 waxa uu aasaasay mareegtii caanka ahayd ee internetka ee Somali Talk dadka waraystayna waxa kamid ahaa madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim Salaad Xasan markaasi kadib waxa uu shaqo ka helay telefishinka Al Jazeera laakiin waxa uu si weyn ugu lug yeeshay siyaasadda Soomaaliya sanadkii 2012 waxa la sheegay inuu kamid ahaa raggii wax ka dhisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuleystay doorashadii baarlamaanku ay codeeyeen bishii Sebtembar ee sanadkaasi wasiirka dekedaha inuu noqdo ayuu iska diiday sanadkii 2015 sanadkii 2017 waxa uu ahaa madaxii ololaha ee madaxweyne Farmaajo oo ku guuleystay doorashadii dhacday bishii February ee sanadkaasi Farmaajo waxa uu isla markiiba uu magacaabay agaasimihii madaxtooyada sanadkii 2018 waxa loo magacaabay ku-xigeenka agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee NISA sanadkii 2019 waxa uu noqday agaasimihii guud ee NISA sanadkii 2020 ayaa waxa xilka ka caydhiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble laakiin madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka galabta waxa uu shaaciyay in isaga iyo madaxweynihii uu dhisay ee aadka isugu dhawaayeen ay isku macasalaameeyeen siyaasadda